ورشدان وحلا أساسا لبضو كوني كوي تمنكي وحين كوا هاد أول أسل كيدو وهو قصوا بلودي وهاد ورشد شركة قشن كقاعدة مجال مقدشو مجال بنان كيدا جيسة سي مجال مك بنان كيدا أنجيني أيام وحن أوغاني مجال دي النظيفيني قشن كي مجال كقاعدة بنان كي أجيني بنان كي ندبكو هايو سادرت مركب وفكرني وحن كفكرني أنا قشن كان وصار كصارنا waxaan sameynay mishiinno macmala oo gacan ku sameeysa ayaan waxaan isku daynay inaan ka soo saarno qashinkii interlog dhulka la dhigto iyo jilayga guryaha la saarto caaga keensada ka gadahay qashin qofka ka keen dara dhaqajir dharkii waa caaga keensada aan gata ha ilmaha ku biisha waxaan u leeyahay marka inaan helno mishiinada marka helnay ayaan waxaan sameynay in dad badan shaqo abuur u sameeyno dadkaas oo kala ah laba qaybood labada qaybood waxay kala yihiin dadka danyarta ah ee magaalada Muqdisho banaankeeda jooga ee subaxii u taga qashinka magaalada Muqdisho inay laga fogeeyo in wax ka soo helaan waxay soo helayaan waxay tahay caagta magaalada laga fogeeyo bacaha jawaanada waxaas ay noo keenaan waxaas ayaan anaguna dib uga gadanaa sidaas ayay kuna shaqo abuur ugu noqotay waxaan ka mid ahay magaalada Muqdisho dhalinyarada oo shaqo la'aanta ku ahayd alxamdulillah marka shirkaddan Africa Solution oo company-gan baan shaqo ka helay alxamdulillah marka shaqadan waa shaqo fiican oo wanaagsan marka alxamdulillah shaqadan baan ciidayda alxamdulillah aan ku biistaa ma sha Allah shaqo fiican oo shaqo wanaagsan alxamdulillah marka waa iska fiican waa dhaqdhaq weey ma sha Allah halkan caagag oo bolol ah oo wadada ag soo aruursaday iraakeensada oo gato oo lacagtii laga siiyay ilmihii oo biisha ag soo raadiyay inta ka hor wada oo magaalada gali jiri ku dhaxyaa jiri dhaqooga raadi jiri dhaqoogiyo lacag saasay ma laga helayay caagta ka fiican caagad markii soo aruursad 80 ko boqolkood ka helay oo maana soo waaysid dhaqooga wal soo waaha marmarna wal soo helaa ana wax way dad noo diiwaan gashan oo anay kaashwalahan ugu diiwaan gashan oo magacooda iyo teleefanadooda aan hayno way jiraan oo ah warshada markii la bilaabay shaqadeeda ilaa hadda noo keenay iyo dad kale oo ay u sheegeen maadaama dadka iska danyar ay yihiin magaalada Muqdisho banaankeeda ay wada degan yihiin ay u sheegeen ay dhaheen waxa uga maarmi kartaa dharkii la dhaqaayay iyo magaaladii ugu shaqo la'aanta ku haysay inaan subaxii israacno magaalada banaankeeda aan tagno waxaan lacag ahayn aan soo qaadano wixii aan lacag ka sameeyno nasiib la lama noor labaadna alkiina noor عشان alkiina noor tamshan alkiina waxay la isku socol bishaan la aruurhay bishaan la aruurhay kaadi inta lu keeday dulub keenay alaabta aan soo saarno waxaan geynaa magaalada Muqdisho waxaan geynaa waxaan naga qaataan kuwa jilaygan guryaha la saarto magaalada maadaama ay dhismaheedu hadda uu aad u fara badan yahay dhismihii uu noqday muxuu ahaa dhisme dadkii horumar u socdaan waxaana warshadaana aan la aqoon horay ay Soomaaliya uga jirin wax dhisdeel kalina wax sameeysa warshad sameeysa jilayga horeeto dalka dibadiisa ayaa laga keeni jiray hadda laakiin waxaan isku dayeynaa oo aan rabnaa inaan baahi tirno wixii dalka dibadiisa laga keeni jiray inaan dalka gudihiisa ku sameeyno oo ay noqoto wax dalka ay ka faa'iidaan qiimihii lagu keeni jiray magaalada dadka dibadiisa loo keeni jiray waqtiga la suugi jiray inaan soo yareeyno oo waqti gaaban iyo qiimo jaban waxa ka shaqeeya waa Africa Solution waxa xisaabsanaa qaybta oo miisaamida ay ciid sir isku daro iyo caagid sir isku daro xisaabsanaa waxa jira baaciyaal xaafadeed aniga oo meelaha baadgamada iska jira Africa Solution soo beernay waan nolol maalmeedkeen iyo maanta ma sha Allah alxamdulillah wana qabnaa nolosheed marka caag aruursa gal waa fiicnaad kiilo 3 kuran liga siiya markii halihii akeensado 100 marba sii waa magaalada qashin laga soo daadiyaa ka soo dhax aruursada waxaan ka shaqeeyaa sida caagidan baa maartay aan jijibina waxaan ka soo saarnaa jiliga oo kale sida interlog oo kale marka ma sha Allah taabalka oo kale sida maartay adigu 10 shay amal baan ka soo saarnaa oo kala nooc ah wax badan baa dareemay ma sha Allah waxa dhigi lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed hata intay markale aad lahayeen
in ayaga oo ay garab soo siiyaan wax soo saarka inay oo qayb galaan sidii caagagtii kale haddii noo keeni karaan inay noo keenaan wax badan baan baahanahay ana maanta in oo dhalinyaro Soomaali oo tabanin dad badan ay wax u qabatay oo dadka dhamaantood waa lagu wada dhaqan yahay alaabtii soo saarto waa caagada iyo ciid iyo la isku daro waa laga sameeyaa oo la shiido waxa looga faa'iideystaa guryaha lagu dhisaa fikir inta ku duwan oo cuntada aan u hayno waxa laga sameeyaa cuntada waxa loo isticmaalaa gaaska marka waxaan isku dayaynaa inaan gaas ahaan u isticmaalno oo aan gaas u bedelno كواعدو كتوحان استعمالنا سو صارنا دحوشو كaleeto dhuxush waxa laga sameeyaa qashinka magaalada Muqdisho la fageeyo gubtay oo shaqeybtii qashinka ayaa laba qayb qaybna waa qaybtan bacaha iyo caagta iyo waxaan kaleeto waxaan u isticmaalnaa inaan gubno oo inaan ka soo saarno antarlooga iyo waxaan kaleeto oo aragteen jeeliga guryaha la saarto baalkii muxuu ahaa bulkeetiga guryaha la isgalgelinayo qaybta kaleetana waxaan ka soo saarnaa inaan u isticmaalno inaan dhuxusha aan ka sameeyno ayagana